ashir mudooyinkii u dambeeyay uga socday magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn labada garab ee jamhadda hubeysan oo SSC ayaa saaka soo gabagaboobay iyadoo inta kadib loo qabtay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay taasoo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn iyadoo ugu horeyn uu xafladda furay Cabdirashiid Xuseen Cali isla markaana uu ku dheeraaday midnimada reer SSC wallahi wa barakaat salaan kadib xafladan sharafta badan waxa weeye maaragtay aadka loo soo maamusay guud ahaan maaragtay waan uga mahadcelinaynaa abaabulkeeda iyo ka soo qaybgalkeeda inta kadib waxaanu doonaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaanu maaragtay ka hadalno waxa weeye maaragtay qadiyada xafladan iyo waxa weeye maaragtay waxyaabaha ay maaragtay daaran tahay inta markaan ka soo gudbo waxa weeye xafladani waxay maaragtay qusaysaa waa midnimo waxaanu ognahay guud ahaan midnimadu waxa weeye ummaduhu waxa weeye maaragtay ahmiyadda ay u leedahay midnimo la'aanna maaragtay inaysan haba yaraatay ummaduhu wax u qabsoomaya haba yaraatay inaysan jirin inta kadib midnimadu waxa weeye halkan maanta aanu isugu nimid waxa kamida in waxa weeye jabhaadkii waxa weeye gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxa weeye lagu mideenayo laba garab oo kamida labada garab oo waxa weeye deegaanka Buuhoodle isugu yimid kadibna waxa weeye maaragtay isla qaatay in la mideeyo guud ahaan deegaanadeena dhaqdhaqaaqyada ka jira in la mideeyo si waxa weeye maaragtay waxa weeye dadka xuduudiisa iyo maskaxdiisa iyo taladiisa ay mid u noqoto guud ahaan marka waxaan leeyahay maaragtay midnimadaasi guud ahaan dadka gobolada SSC ku nool waa in la wada taageeraa waana waajib in wada saaran taageeradeeda iyo midnimadaasi in la wada qaato inaha sanadka ka baxay inta kadib waxa warbaahinta uu akhriyay qodobadii lagu heshiiyay Jaamac Siciid Ismaaciil waqti tahay 24kii bishii 2020 waxa heshiis ku wada gaaray magaalada Buuhoodle labada garab ee hubeysan ee jamhadda SSC waxayna ku heshiiyeen qodobadan hoos ku qoran lambar 1 haddaanu nahay mas'uuliyiinta jamhadda SSC waxaanu heshiis buuxa ku galnay in la mideeyo labada garab ee hubeysan lambar 2 xoreynta gobolada SSC iyo ka hortagida maleeshiyaadka Soomaalidiidka ee SNM lambar 3 mideynta iyo turxaan bixinta shacabka SSC lambar 4 tayeynta iyo dhisidda ciidamada SSC lambar 5 qaabilaadda iyo soo dhaweynta ciidamada ka soo goosta SNM lambar 6 waxaa jamhadda fadhi u ah midnimada ummadda Soomaaliyeed lambar 7 jamhaddu waxay soo dhaweynaysaa cid kasta oo aaminsan midnimada ummadda Soomaaliyeed lambar 8 waxay jamhaddu wada shaqayn dhow la yeelanaysaa maamulada aaminsan midnimada ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyn waxay jamhaddu cod dheer iyo cod gaaban ugu baaqaysaa ummadda reer SSC inay midoobaan waxaa warqadan soo wada saaray labada garab ee hubeysan ee jabhadda SSC oo gudoomiyaasha kala ah Faysal Maxamed Xasan Falaalug iyo Cabdirashiid Xuseen Cali inta kadib waxa hadallada iska daba qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale odayaasha iyo waxgaradka Ilaahay baa mahad leh Ilaahayga isugu keenay xafladan quruxda badan inagoo danteena iyo masiirkeena u tashanayno oo ka tashanay Ilaahaygaas mahad leh oo aan si mugle u soo dhaweynaya jabhadda SSC maamulka SSC waxaanu soo dhaweynaynaa midnimada jamhadaha ku midoobay halkan ee Sool iyo Sanaag iyo Cayn ee u midoobay dalkooda iyo deyntooda iyo dadkooda soo qayb galay shirkan aadka u quruxda badan shirkani wuxuu ku saabsan yahay midowga labada garab ee SSC waan soo dhaweynayaa
aad baan ugu faraxsanahay hadday u taagan yihiin sool iyo sanaag iyo cayn waxa weeye waa jamhadda la baxday SSC waa xoreynta dhulbahante iyo wixii raaca ee Soomaaliya waxa weeyaan waa wax loo baahan yahay sidaasaan ku soo dhaweynaa waa dantayda rahmatullaahi wa barakaatu dhammaan waa salaamaya ka soo qaybgalayaasha xafladda midaynta jabadaha SSC ugaasha culimada waxgaradka odayaasha ururada haweenka dhalinyarada dhammaantiin mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib waxaan taabanayaa afar qodob kow aniga oo xafladda midaynta jabadaha SSC ku metelaya guddida ayaka talinta iyo midaynta gobollada SSC waxaanu si buuxda u taageersanahay midnimada jabhadda SSC macbuudka ilaahay mahad baan u celinayaa magaca Soomaali mahad baan u celinayaa madaxda SSCna mahad baan u celinayaa micnaha fahanay mahad baan u celinayaa macfalkan iyo ururkan mahad baan u celinayaa sidaan u midownay mahad baan u celinayaa ugu dambeynna waxaa munaasabada soo afmeeray ama soo xiray gudoomiye Faysal Maxamed Xasan Falaalo isagoo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay midnimadu sidoo kalena fariimo u diray dhammaan shacab weynaha reer SSC dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada qof walba maskabkiisa aan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyinba in badan waxaan idinka mahad celinaynaa ka soo qaybgalka shir saxaafadeedkan aanu qabannay saaka inaad ka soo qayb gashaan oo aad dhegaysataan qodobada tan laydiin soo gudbiyey aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa mahadnaq kadib jamhaddu waxay soo saartay waad dhegaysanayseen 9 qodob marka la soo ururiyo nuxurka qodobada tan waa 2 qodob waxa ay xambaarsan yihiin ama 3ba ummadan reer SSC sool iyo sanaag iyo cayn ganaax baa idinku dhacay dabcan waxaan u malaynayaa waa ka sabaad la timaadeen u malayn maayo way tahay ganaaxaan cidi idinla qabin oo aan Soomaaliyeed idinla qabin baa idinku dhacay marka koobaad ilaahay u noqda oo Allaha loo toobad celiyo marka labaad bal raadiya ganaaxa kan xagee idinka yimi ganaaxani wuxuu idinka yimi tafaraarq nuxurka qodobada tani waxay midnimo ma aha guruubo dana gaara wata waxa kani maaha qof kasta oo abtirsiinyahan ah sool iyo sanaag iyo cayn masiirkiisii iyo dadnimadiisii maanta meeluu kaga warramo ma sheegi karo meeluu kaga warramo waxaan u malaynayaa rooyinjaha nimankee dadkan la yidhaahdo oo maxay ahayday baa lagu mateli karaa reer sool iyo sanaag iyo cayn rooyingaha kuwaasaa lagu mateli karaa waa adduunka dushiisa iska daa Soomaaliya taariikhdii aad lahaydeen iyo ummadda Soomaaliyeed meeshaad kaga jirteedna waad garanaysaan arrintaasi waa midnimo la'aan waxay jamhaddan idiin soo jeedinaysaa oo cod dheer iyo mid gaabanba ay reer sool iyo sanaag iyo cayn u soo jeedinaysaa midnimo waxay jamhaddani u bandhigaysaa shacabka reer sool iyo sanaag iyo cayn waxay tuurta ku sidato waxa kani inuusan ahayn ee waxgaradka dhallinyarada ururada bulshada oo kala duwan cid walba ay u furan tahay waxaanu noqonnay annagu horraanqaadihii baanu nahay midaynta iyo wax iska celinta
marka naanays kale ha u samaynine ilma adeerayaal kaalaya waxgaradow loogu kaalaya oo aynu iska celin oo iska saarno wax dulliga si aynu xaqeena iyo dadnimadeena iyo dalkeena aynu helno yaan mugdiyo kale laga raadin yaan goldalooli iyo daloolo kale laga baadi dooni yaan abtirsiinyo kale loo samayn waxaanu leenahay arrintani waxay u taagan tahay jamhaddani xoraynta iyo midnimada sool iyo sanaag iyo cayn waxay u furan tahay cid kasta oo abtirsiinyahaasa oo aaminsan iyo cid kasta oo aaminsan ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda na waa u furan tahay waxaanu soo dhaweynaynaa aanu baaq u direynaa gaar ahaaneed waxgaradka sool iyo sanaag iyo cayn inay geesaha nala qabtaan nagu barbar galaan kalyaraha naga leexday soo hanuuniyaan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin qodobadiina waa la idiin sheegay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منى أحمد عبدي منى مانديق دلك تي في بوهل